Assalaamu calaykum. Waan ku salaamay daawada meel walba oo dunidan aad ka joogto ku soo dhawow mar kale iyo xubinteennii dhanka sirdoonka. Barnaamijkaani waxaan ku soo koobi doonaa macluumaad ku saabsan hay'adda sirdoonka ee dalka Pakistan oo marar badan aad maqasheen inay ka mid tahay hay'adaha ugu tayada wanaagsan marka laga hadlayo dhanka sirdoonka dunida. Warbixintaanina waxay ku bilaabanaysaa Jamhuuriyadda Islaamiga ee Pakistan waa dawladda kaliya ee Muslim ah oo leh hubka nuclear-ka kana mid ah shanta dawladood ee ugu ciidanka badan uguna tababarka wanaagsan dawladaha Islaamka. Waxa la isweydiinayaa qiyaas dhanka sirdoonka sidee ayay ku noqon kartaa. Macluumaadkaanina waa qayb ka mid ah taxanayaal kooban oo la xiriira arrimaha sirdoonka ee dawladda Pakistan oo aan doonayo inaad warbixin ka ogaataan. Hay'adda sirdoonka ee dalkaasi Pakistan magaceeda waxaa loo soo gaabiyaa ISI oo ah The Inter-Service Intelligence. Waa hay'adda sirdoon ee ugu weyn ee dalkaasi Pakistan. Benazir Bhutto, ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan, mar uu ka hadlayay hay'adda sirdoonka ee Pakistan ee ISI waxa uu ku tilmaamay in ay tahay the state within state ama dawlad ku hoos jirta dawlad kale. Tani waxay ka dhigan tahay in awood dheeri ah ay leedahay oo ay ogolaansho u haystaan go'aanka gaaridda habka loola macaamilayo cadowga Pakistan. Sidoo kalena waxay haystaan fulinta howlgallada basaasnimo iyo ficilada khatarta ah ee ka mid yihiin in la qaarijiyo dadka laga shakiyo. Sanadkii 2011 The International Business Times oo ah website online ah kuna soo baxa ilaa 4 luqadood oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Chinese-ka iyo Japanese-kaba waxa hay'adda sirdoonka ee dawladda Pakistan uu ku tixgeliyay inay tahay mid ka mid ah 10 sirdoon ee ugu khatarsan guud ahaan dunida. Waxaana sirdoonka Pakistan ay shaxdaani ay wada galeen hay'adaha sirdoonka ee Mossad iyo CIA-da oo Mareykanka iyo Israa'iil ah. Si aan u fahanno sirdoonka Pakistan waxaan u baahannahay inaan ogaano inaysan ahayn hal hay'ad oo kaliya walow ay ugu weyn tahay hay'adda sirdoonka ee ISI. Waxaa haddana meelo kala duwan aan laga aqriyo ama laga soo saaray warbixino ku aadan in Pakistan ay leedahay ilaa 5 hay'adood oo sirdoon ah inta la og yahay. waana mid keentay in hay'adaha sirdoonka ee dalkaasi Pakistan la isku wada yiraahdo Pakistani Intelligence Community ama dalladda sirdoonka bulshada ee Pakistan. Waxay ka kooban tahay hay'adaha sirdoonka ee Pakistan ee ka howlgala gudaha dalka iyo dibaddiisaba si ay u maamulaan oo ay u dabagalaan una soo ururiyaan xog sireedyada aasaasiga u ah ammaanka qaranka dalkaasi Pakistan. Dalladani waxay ka kooban tahay 1 Intelligence Agencies hay'adaha sirdoonka, 2 Military Intelligence sirdoonka ciidanka militariga, 3 Civilian Intelligence and Analysis Directorates agaasinka sirdoonka rayidka. Waxaa dhammaantood ay ku howlgalaan qorshaha wasaaradda fulinta ee dalkaasi Pakistan. Dalka Pakistan waxaa ka jira hay'ado sirdoon oo badan kuna howlan qorshooyin iyo howlo kala duwan lana xiriira oo kaliya dabagalka, soo ururinta, kala shaandhaynta xogaha gudaha iyo dibadda. Sidoo kale waxa ay dejiyaan qorshaha ciidamada Pakistan. Waxaa kaloo ay ku howlan yihiin howl muhiim ah waana basaasi diridda howlgallada shakhsiyaadka gaarka loogu xilsaaro in wadan ama koox dad gaar ah ay ka xog keenaan. Taasi waa qorshaha ugu adag uguna nacfiga badan ee ay hadda sirdoonka ay ku dhaqaaqdo marka laga yimaado in lacag iyo maskax badani ay ku bixiso howlgallada noocan oo kala ah oo ay u dheer tahay khatarta ka imaan karta. Haddana waa halka ay hay'adaha sirdooneed ee dunida ay ku kala hareen. markaana aan eegno 5 hay'adood ee sirdoon ee dalkaasi Pakistan: Inter-Service Intelligence ISI, Federal Investigation Agency FIA, Defense Investigation Service DIS, Intelligence Bureau iyo Military Intelligence. Dhammaantood waa 5 hay'adood ee ugu waaweyn hay'adda sirdoonka ee dalkaasi Pakistan. markaan aan ogaano hay'adda sirdoon ee Pakistan ugu weyn, Inter-Service Intelligence ISI waa hay'adda ugu horeysa ee dhanka sirdoonka ee dawladda Pakistan. Xarunteedu waa magaalada Islamabad ee caasimadda dalkaasi, waxaana ay u howlgashaa oo ay mas'uul ka tahay soo ururinta, qiimeynta iyo kala shaandhaynta xog sireedyada qaranka amniyadeed ee dunida dacaladeeda ka imaanaya. waxaa kaloo ay xubin ka tahay dalladda bulshada sirdoonka ee dalka Pakistan, afka qalaadna lagu yiraahdo Pakistani Intelligence Community. xogaha hay'adda soo gaarana marka la qiimeeyo waxa iyaga oo ku suntan hadba xaraf ama lambar muujinaya hadba sida ay u muhiimsan yihiin loo gudbiyaa agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka, waxaana ay isaga ay shaqadiisu ay tahay inuu sii gaarsiiyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda Pakistan hadba xog sireed kasta oo la helo.
ISI waxaa la aasaasay sanadkii 1948 waxaana in dhidibada loo taagay hay-adani ka dambeeya dagaalkii Hindiya iyo Pakistan dhex maray sanadkii 1947 ilaa 48. dagaalkani wuxuu banaanka u soo dhigay liidashada dhanka sirdoonka ee dowladda Pakistan ee xilligaasi. intii uu socday dagaalkaasina waxaa Pakistan ay ku liidatay howlgalladii dhanka sirdoonka ee soo ururinta iyo wadaagidda xogaha cadawga, sidoo kalena isku xirka ciidamada dhulka, cirka iyo badda ee dalkaasi Pakistan oo aad u liidatay. halka Hindiya ay Pakistan kaga horeysay dhanka basaasida, ISI waxaa loo qaabeeyay in ay si wada jir ay uga howlgali karaan saraakiisha saddexda ciidan ee cirka, dhulka iyo badda, kuwaas oo ku takhasusay soo ururinta, baaridda iyo qiimeynta xogaha sireed ee laga helayo basaasida ciidanka ee dalalka dibadda ah iyo waliba wax walba oo xog sireed ah oo muhiim u lahaa dalka Pakistan. hay-adani ISI ee dalkaasi Pakistan fikradii lagu aasaasay waxay ka soo munguurtay Robert Cowthorne. wuxuu ahaa taliyaha guud ee ciidamadii la dhihi jiray British Indian Army oo u adeegi jiray boqortooyadii Ingiriiska intii ay gumaysanaysay dalkaasi India. generaalku wuxuu markaasi u ahaa taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada Pakistan, wuxuuna u doortay Cornel Shahid Hamid in uu aasaaso hay-adan. bilowgii shaqada hay-adda sirdoonka ee dalkaasi Pakistan, ISI wax shaqo ah kuma aysan lahayn soo ururinta xogaha sirdoon ee dalka gudihiisa, shaqaalaysiinta basaasiinta iyo sidoo kale ballaarinta hay-adani waxaa ka dambeeyay Sayid Maxamed Ahsan, waxaana uu ahaa admiraal ciidamada badda ka tirsan, waxaana markaani uu ahaa ku-xigeenkii agaasimaha sirdoonka ciidanka badda. Sayid waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray qaabeynta habshaqeydkii hay-adda sirdoon ee dalkaasi Pakistan. sanadkii 1958 afgambigii ka dhacay gudaha dalka Pakistan ee Maxamed Ayub Khan wuxuu sababay in dhammaan hay-adihii sirdoonka ee dalka Pakistan la hoos keeno xukunka madaxweynihii xilligaasi oo ahaa mid ciidan. ilaalinta ammaanka qaranka taasi waxay ahayd shaqada aasaasiga ee hay-adda sirdoonka, waxaana ay u noqotay fursad dahabi ah oo xukuumadii madaxweyne Ayub ay heshay. xilligaasina hay-adda sirdoonka ee dalka Pakistan waxay u shaqeynaysaa si daran. madaxweyne Ayub Khan wuxuu u tixgeliyay wax walba oo xukuumaddiisa ka soo horjeeda, wuxuuna u tixgeliyay qatar wadankaasi ku soo wajahan. waa farsamo lagu yaqaano sargaal ciidan ahi markii xukunka afgambi uu kula wareego. waxay caburiyeen shacabkii, waxaana ay ku qabteen gacan bir ah oo aanan nixin, waayo askariga looma tababaro si uu dal u xukumo, xitaa lama baro sida shacabka loola dhaqmo. kaliya waxaa la baraa beer adayga, dhibka iyo gaajada, rafaadka iyo sidoo kale u adkaysiga duruufaha qallafsan iyo la dagaalanka cadowga. waana tan ka dambaysa kakanaanta iyo qallafsanaanta xukunkooda. muddadii uu madaxweyne Maxamed Ayub Khan uu ka talinayay dalkaasi Pakistan, hay-adda sirdoon ee Pakistan waxay qayb ay ka ahaayeen fulinta awaamiirta xukuumadii militariga ahayd ee xilligaas. 5 Juulaay sanadkii 1977 Generaal Maxamed Zaya al-Haq waxa uu xukunka Pakistan xoog kula wareegay wadankuna waxa uu mar labaad u gacanta u galay xukun militari ah oo aan jixin. waxaase mar kale fursad heshay hay-adda sirdoonka ee Pakistan ee ISI iyada oo la sii ballaariyay shaqooyinkeediina waxay noqotay mid la laba jibaaray, waxaana ay qabteen howlgallo ka badan kana baaxad weyn kuwii ka horeeyay. waxay isku mid ay uga howlgali jireen gudaha Pakistan iyo dibaddaba. sanadkii 1979 waa xilliga hay-adda sirdoonada ee dalkaasi Pakistan ay noqotay state within state ama dowlad ku dhex jirta dowlad kale, waxaana ay tani ka dambeysay in balaayiin dollar ay ku baxaan oo ay ku bixiyaan dowladaha Mareykanka iyo Sacuudiga. ujeedku wuxuu ahaa sidii hay-adda uga qayb qaadan lahayd dagaalada mujaahidiinta ee Afghanistan, kuwaas oo looga saarayo midowgii Soviet sanadkii 1980. Maxamed Zaya al-Haq madaxweynihii keligii taliska ahaa ee dalka Pakistan sanadkii 1977 ilaa 88 wuxuu arkay in lagama maarmaan ay tahay inuu isbahaysi la noqdo Mareykanka danihiisa uu kaga soo horjeedo fiditaanka midowgii Soviet ee koonfurta Aasiya. madaxweynuhu wuxuu sidoo kale u arkay hay-adda sirdoon ee Pakistan inay qaybta ugu weyn ay ka qaadan karto ciribtirka cadowgii Soviet, isla markaasina ay lagama maarmaan ay tahay in dhammaan taageerooyinkoodii lacageed iyo kuwii qalabeedba ay gabi ahaanba hay-adda isugu geeyaan. laakiin caqabadu waxay noqotay qaabka madaxweynuhu uu wax u arkayay iyo sida CIA-da Mareykanku ay aaminsanaayeen aysan isku mid ahayn. taasi waxay ka dhigneed in danaha Mareykanka ka leeyahay dhulkaasi iyo kuwa Pakistan ka leedahay ay kala duwanaayeen. sidaas daraadeed hay-adda sirdoonka ee Pakistan ee ISI ma aysan helin taageeradii ay u baahneed, walow la sheego in qorshihii madaxweynaha Maxamed Zaya al-Haq uu ka wanaagsanaa kii Mareykanka, maadaama madaxweynuhu uu ahaa muslim waliba diinta islaamka
aad u jecel oo ay meesha ka maqnayd dhisidda dowlad Afghanistan leedahay oo dhammaystiran. isku soo wada duuboo labada dowladood waa Mareykanka iyo Bakistan waa ay ku kala aragtiyo duwanaayeen qaabka dagaalka loo qaadayo iyo waxa mustaqbalka dambe ee dhulkaasi laga yeelayo. xukuumadii Bakistan ee xilligaasi oo og waxtarka iyo awoodda hay'adda sirdoonka ee Bakistan intaasi kagama aysan harin arrintaasi ee waxa la sheegaa in dowladda Bakistan ay bilowday ciyaaridda doorkeedii muhiimka ahaa ee si iskeed ah, waxaana la sheegaa inay xiriir ay la yeelatay dagaalyahanada Taliban. xalqadan intaas ayaan ku soo koobaynaa, waxaana qaybta xigta aan ku eegi doonaa macluumaadyo kale oo hay'adani ku saabsan. qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.